السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barashada cilmiga video editing-ka. waa cashirkeeni saddexaad. maanta waxaan qaadan doonaa sida loo soo geliyo muuqaal. waxaan ku dhufanaynaa qeybtan ay ku qoran tahay media, kadibna waxaan tagi doonaa waxaa noo soo bixi doonta calaamadahan muuqaal, cod caadi ah iyo sawir. intaba meeshan waa laga soo gelin karaa. anaga muhiimadeena waxay tahay inaan soo gelino muuqaal. marka intaan ku dhufanaynaa desktopka ayuu inoo yaalaa. ducadaasaan soo gelinaynaa, waan ku dhufanaynaa oo bilaabaynaa. ducadaan soo dooranaynaa oo bilaabaynahay. intayna soo fadhiisanaysa marka daytii meeshii import mediahii aan soo gelinayn intuu ka baxay, right click haddii aad tiraahid intuu kaaga soo baxaa. waxaa kaloo soo gelin kartaa inaad file tagtid, import aad tagtid, media aad tagtid. marka saddexdaas qayb ayaa loo soo geliyaa. marka ugu horeysa waa caadi meeshaan kugu soo qabanayo. marka labaad oo right click aad kusoo gelin kartid. marka saddexaad inaad import media tagtid, iyo mar afraad aa jirta meeshaan balaaska ayaa ku dhufanaysaa import media kuu soo baxaysa ayada. marka intaas qayb ayaa loo soo geliyaa. markii aad soo gelisid meesha lagu edit garayna waa qaybta hoose. sidee kusoo gelinaya? waan dooranaa calaamada flare waa hadda. markii aad tagtidna flare 3-4 dhinac loo wadi kara ayay noqoto sooma. waxaan qabanaynaa clickta la qabanaynaa, hoos ayaan usoo jiidaynaa. track 1 aan keensana oo kale. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. waxaan rabaa intaas aayadaas qur-aanka inaan jaro. marka aayadada meesha ku dhamaatay ayaan joognaa. calaamadan guduud inaan qabto aan jiido, saas aan dhaho, kadib right click aan dhaho, delete aan dhaho waa sameyn karaa, ama cut aan dhaho. sidoo kale waxaan sameyn karaa inta inaan cut ka dhahana waa sameyn karaa. waxaan kaloo sameyn karaa inaan tago meesha aan ugu talagalay. meesha uu ka bilaabanayo waa inta sooma. inaan calaamadan ku dhufto ama s aan taabto. s haddii aan taabtona wuu jarmayaa. qeybta uu ku dhamaanayana inaan tago waa inta sooma, kadibna kan aan doorana. hadda haddii s aad taabto ma ii shaqeynaa, ama qeybtan aan ku dhufto ma ii shaqeynaa. maxaa yeelay select inaan ku sameeya waayo. qeybtan aan dooranaa. marka waxaan ku dhufanaa calaamadan, waan jaray. hadda wuxuu noqday qeyb koobaad, qeyb labaad iyo qeyb saddexaad sooma. qeybta ugu horeyso right click dheh, rapidly delete-kan waxa waaye qeybta ugu horeyso ayuu nageynayaa asigoo positionka baabi'inayo. haddii aan ku dhufto ujeeda positionkii uu baaba'ay, meesha ugu horeyso ayuu ku dhacay. haddii aad tiraahid delete, haddii aad tiraahidna qeybta hore way positionkaas ayaa ku banaananaya. marka waxaan tagaynaa rapid delete aan ku dhufanaynaa, ama control del labadaas mid ayaa taaban kartaa. hadda uu baxay, qeybtaas way baxday. qeybtan kale sidoo kale ayadana delete iska dheh. hadda waxaa noo soo haray intaan. sidee loo saabgaraynaa? waxaan tagaynaa qeybtan ay ku qoran tahay share. waxaan ku dhufanaysaa local file. customerkiisa ku deyn kartaa. haddii aad ratid youtube toos u gelin kartaa, haddii aad google drive aa gashan kartaa. marka intaana muhiimadeeda waxaa waaye, waxaa ku fiican inaad tiraahid customer production settingkaas. markii intaas aad tagtid waxaa ku dhufanaysaa next. waxaa ii dooran mp4 aa ii dooran, laakiin intaan oo kale waa ku save garaysan karaa. mp4 aan ku dhufanaynaa. qeybtan waa iska qaadaynaa size-ka cabirkiisa. muuqaalkan cabirkiisa hadduu yaryahay waa ka bedeli kartaa. cabirka meeshan waa ka bedeli kartaa. cabirka ugu fiican waxaa waaye inaad tiraahid 19:20. hoosna saa isku buuxinayo waa 10. haddii uu qeybtan ay ku furan tahay laakiin iskuma buuxinayo, labada qeyb isla shaqeeyaan. 19:20kaas hoosna ay noqoto 10:80.
marka next yaa leenahay. tan magacaasha kale aan ka dhigan doona hadduu ilaah yiraahdo. next yaa leenahay. qeybtan hadda wuxuu magaca uga bixinaysaa waxaan leenahay aya dikriga magaceeda hoos oo ku qoray meeshuu dhigaayo inta ayuu ku dhigaya. meeshaan qeybtan play video after production markii uu dhameeyo kadib inuu direct isku daaro marka qeybtaas ma baanin. show production result markii uu save gareynayo inaa aragtid, marka qeybtaas waa iskaga baahanahay. intaan hadda markaa kasoo gudubtay waxaa leedahay finish. markuu dhameeyo qeybtan ayaa kusoo saaraa. qeybtan open production folderka hadii ku dhufatid meesha aad ku sameysay iyo direct ku geenaya. marka hadii ku dhufano ducadii tus noo geeyo iyadoo mp4 ah ku dhufanayna. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم marka intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa cashirkeena hadduu ilaah yiraahdo. wixii su-aalaada qabtaan oo isoo weydiin doontaan insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. cashirkan cashir ku xiga ayaa noo balanay.